بسم الله الرحمن الرحيم aad baan idin salaameynaa waa xirtii Saami team markale iyo kulanti wanaagsan waxaan caawidiin wadnaa challenge-gaas ragga qaar halka fadhiya wax laga yaabaa horta waxaan isku soo sheegnay maahay islameena soo socodsiin والله islameena ogeyn hal nin oo halka kamid ah waa loo taabtay laakiin ma garanaysa xajada kowde challenge-gaasi waxa uu ku saabsan yahay diyaarada mootiin horta niman saddexdiina wada joogtay ma ka soo bixi kartaa challenge-ga muxuu yahay challenge-ga hadda la shaacinayaa ma ka soo bixi kartaa adigu ii sheegtay sax bisbaas lama cunayo haye maxay ahayd wixii kale la isku bur naga daaya sax niman niman wax kale la iskuma bahalkay ninkaas waa qosle challenge-ga haddii aynu gudo gallo idinkuna aad diyaar u tihiin waynu bilaabaynaa ايوه اقول لك بلو يلا يلا challenge-ga idinka ogolaaday anu ma ogolaan dibad ka ogolaanaysaa wax yar fudud idinku waa challenge soo ma waa challenge waa Saami team wax weyn ha ka filan wax weyn ha ka filan wax weyn ha ka filan ma wax weyn ka filan wax weyn ka filan wax weyn ka filan adigu dhexdeeda ku jirta la tala waxaan la yaabay maqalbeed markaa idinka tagay ilaahay xilliga waxa ii sugisay wax yar ma sax aanuba ku sheegno challenge-ga caawa halkan aan u fadhino waa Saami team aad baan u salaameynaa hadii ay markii kugu horeysay aad muuqaalka daawanayso ay tahay fadlan subscribe ta saar share-na ku qabo isla markaana like-ta hala moogaanin caawa halka waxaan isugu niminaanu sameeyno challenge cusub oo hore aan loo sameyn challenge-gaas waxa la yiraahdaa English ku hadal الله باي tama igidaysan uu kuma fiicnay luqadii Soomaaliga waa la iska ilaaway reer baa la iska dhigay English ku hadal asma ninkii aan garanayn isagoo xukun baa wallahi billahi talay ogaay Mr. Articles nin dhihi jiray ka baxlaha articles ko la fadhiya Mr. Nugu Chris baa yimi ku jira marka English ku hadal hadii qofkaasi English ku hadli waayo ama uu English ku hadli waayo xukun baa jira sax xukunkaas oo lagu xukumaya anigu waa ii helisay aniga hooyaday baa carabta ku dhalatay anigu arab baan nahayn anigu dadkii Yemen ka soo qaxay baan ahaa waa iska qaadanaya bilaw maamaha xariga waxay in kaan aswadukum yani aswadin okay kelmadda ugu horeysan ku hadlayaa waxay tahay ama liigu xijistay waxaan dhahayaa the number you have soon yeah arruti the number you have sorry u sheeg macnaheeda aniga noo sheeg u sheeg iyaga the number you have sorry the number you have sorry maanta maxay tahay macnaheeda the number you have sorry waxa garanaya dadka Ingiriiska ku hadla kowdee waa garan hay raala number you have sorry the number you have sorry haday khaldantahay document ku soo qora Soma you have sorry sida xadiis anagu akhriin anaga macnaheeda u sheeg wallahi inuu English أنا أقولت the number you have sorry ما ده number على اللواء لما مركب شو حكم ني والك على اللواء ninkan waxa ku xukumaya saddex nin baan nahay inaan talabo luqad qabano dabaqa kala laadina English ugu sheegtaa intaas waa dhimasho ما لا لا English baa ku sheegaya laadina kaliya I will be died baa dhimanaya markaas after challenge after challenge I will be dead waxa laga wadaa macna waa isbadbaadi waa laga wadaa intaan English ka aqoon intaan waa dhimanaya because markuu dhimasho xasuustay waa English saxda ahayd ku soo naxatay waxa ku xiga markan waxa ku xiga koona ka koona weeye maya safay ka socdo walaalka jeeg wiilkii luqada safta waxa la yiri gees baa laga soo bilaabay abti gacan ku sheega isfuraniyo English dear uncle my dear uncle astaghfirullah abti gacan uu yiri uncle waxa ku haystaa adeer waxa aqoon jiray gabar la qabay waa ya gabar la qaban oo aqoon jiray gabar la qabo gabar qaba no macne ataba anu idinku heesaya idinku xatiraadeen ku hadla anu idinku heesaya fanaaniinta cadaanka ah nin baa hooyadii wuxuu ka dhigay inay carab soo lumay tii aan mar raan kartay kasoka haddaad hadda English ku haysto hadhate muxuu noqonayaa waa British yes yes Stella yes ma yes ma English yes English waa ku celiyade yes ku qaadan way Soomaali do you know me wanna love you inta weydii
ما garanaysaa aan ku jeclahay oo English هذا كلمة garanaysaa xitaa jecel baan keenay meesha idinkana ku qaadanay waxa weeyaan ay u gabaysaa saaxiib waa ku aqaana waa igu dhaantay suugaanta waliba tan Ingiriiska luqadda Ingiriiska kelmadda Ingiriiska aad ku sheegaysid anaga kugu xidhanayna idinka ku xidhanay oo idinka meed ku xidhanay may wad garan weydid ma garan anigu damay gama soo bixi waa shaqada sheegay ninkan xukum uu kulul yahay laakiin aan kugu qabto garan way taarikhi of the number you have sorry of we are the same team yes the water ma khatigi idinka ma yeesiri kaas English ma anaguna sheegay we are same English ku hadal baa yiri isaga kalmad English ku hadal baa hadda yes markaad ku haysid maxaas baa waga diidan kaamaana diidan oo ku haysid luqadda lahaayo naga dulqaata saaxiibayaal naga dulqaata waxaan in moogtahay anagu ma anaag ayo way xayr ninkaas wato dadka luqadda la masaas kugu fahmayaan asxaabta marka halkan wareeg labaad bay maraysaa marka ninkan igu xiga aniga aar cadda la yiraahdo baan waxaan weydiin doonaa kelmad Soomaaliya marka wuxuu igu bedeli doonaa English yani kelmad ma dhihi karno wallahi yani tudc isku xidhan wada ugu qabsada corona virus waa jira marka aan ku bilaabo you will be die taamiyad weydiisay may aan Soomaaliga ugu sheegtay ma adu soo biyo macallin biyo laac you will be die baa ku yiri qabri is waiting ninkan waxaan weydiinayaa ninkan maxaya wiilkan wala wanaaj hadalka hay widi anigu xukunka shakhsi walba ku xukumaya hal ninka waxa waxa ka baqay ninka ku weydiistay baa ku xukumaya xukunka la sheegayo u babsi kelmadaas weydiin doonaa maxaa tabasa oo maxaa tabasa maxaa tabasa Ingiriis ku sheeg bal weeri ma Ingiriis waan ku sheegaa maxaa tabasa ana xukunkan sugaya ma la jugtaan jeclahay ma la socota jugtaan jeclahay lix saac habeenimo jug rag ka bariyo maxaa tabasa what you are feeling no feeling waa dareen may maxaad sugaysaa weeye dad iyaga argaaray meel soo saaray iskuul baan hadda koor ba gaalkacyo mataqaana iskuulaadka marka la dhigo ma gaalkacyo Ingiriiska waxba ka sheegay ma gaalkacyo laga baxaa RBS waa bareefad in laga baxo bas intaas halka bareefad marka ninkan yiraahday ku jira agi dhamasta anigu waxa iska daa garamay xakun xukun saaxiib hal daraa ku qabo may daram xala anu waxaan darama hay newdi was bedesheen wallahi dad ku ogaanay darada iyo waxa sheegaysan mata oo ninkan noo xukunaa ninkan wax xukumaya maadaama su'aash aan weydiiyay garan waayo aras xukumay xukunka aan weydiinay xukunka sheegaysan mar inaan ka wardoono waxaan noo qaadaa hees kamid ah heesihii dinama weyn baatiin min weyn ba the legend Hassan Aadan Samatar qaad haye dima qofku wuxuu garanayaa la weydiiyaa ma dib Hassan Samatar hadda ma yar imika dhasha garanaya wayluusana xasuusiye may Hassan Aadan noo qaadniyo hal heesiga xasuusiye wallahi barteeda aan dhigay 15 markaan tamaguur u bedel wala sheegay tooqayga markaan tagay waa kaade maya lagu sheegay ya anaga hadhow naga fujiyo nama qabsan kartaa haye hadda nimankina waaweyn hees baa waxaad iigu odhanaysaa aniga English baa waxaad iigu odhanaysaa askariga team baa tegey markuu tegey oo soo noqday tay buu qaatay geed baa laba geed baa wada baxay markay wada baxeen labadii geed si wada jir wada baxeen saaxiib macan taas meesha ay ka timi baan kaaga keenayaa haykin iyadu sideedii oo xamaysan ii keen team telestack kada ma hada saas aan ku soo dhigtay saaxiib iskuul baynahay Ingiriis ku sheegaya ka yaab daba sheegay team xukunka qaado tol two together maya waa ka maya maya anigu waxa iga sugayo anigu arsuga xaq meel baa daydayanaya meel baa kala daydayanaya ma tidan waa ku cafiyay argada caana gelba Talyaani ku dhaysaa caana gel Talyaani ku dhaha caana gel ilaahay baan nabrayada waanu naqaanaade laakiin inna isku qabsan marxaad ka ahaa caana gel baad ugu Talyaani ku dhashay anu Talyaani ku weydiiyay Soomaalidu Talyaaniga si kala gaargaar ay soo gaadhay manow qaybna Talyaaniga dambe soo gaadhay qaybna Talyaaniga soke hadda ma garaysaa waxa laga yaabaa laba oday hadda Talyaaniga laba eri oo kala siyaan oo kala yaqaan oo ku sheegaya laakiin hawso marxaad naga ahaa xijina hadal
talyaani mana daawanaysaa mid talyaaniya magu jira hadduu talyaani ku jiro ninkan waa isfurtay qaladka aad garanaysa anuu sheegay anu waa garanayaa waa sida uu sheegay talyaaniga Soomaalida laba si uu ku soo gaaray kelmad wala wax sax bay leedahay walaal dhageyso abyaakada ku sheegay waa Sawaaxili waa sax nin waa lama cidul buuki waxaan rabnaa inaad soo waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena soo afmeerno ama soo gabagabayno waxaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal halkani waa Saami Team waa halka loo sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed siman tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed siman tahay marka qofka ugu horeeya aan kusoo dhaweynaa leeyahay bal kelmadaada ugu dambaysa iyo filan waaga challenge kaaga dhacay iyo sida aad marka aad wax weyn u filaynin bal iyo waxaad garan weyday garatay wax badan garatay oo garan weyday ku soco anu waxa la yaabay Cabdi bal u soo sheegtay like tasaas maqli jiro ma socotaa like tu jeesto u bedelay like tu jeesto farsamaysan marka madaxa la orkuwa ani la soo aaday ani lama soo aaday mobilada iska jabinaya kuwa ki oran jiray suulka la gaara ruuga la gaara xawal xawal saara waxay weydiisay challenge waxyaabo igu la yaab ka badnaa anu waxa igu la yaab ka badan laba nin baa dharbaaxay markii indhahan soo qabtay haddana wixii dharbaaxa uma ekeen kaliya ii cadeeya waxay ahaayeen anu garmaayo cid baa faaruqa taabashay oo ku taabo warmaya wallahi bilaat ilaahay hadda wax muddo wax leegu jeexay taabashay marka ay dharbaaxayseen marka ay dharbaaxayseen gowdha nabar buu haatay dharbaaxa ma hay nabar buu ما والله إن وحلي وجهها مالنت إني كان صرت وحي يروحوا مدفن سؤال لم يدا أنا سوق بين عدعيس بين ودينا دائما كان بيد إن تلياني قرنتها حقيقة horta dadka soo inoo soo marxaati furaya iyaga daawanaya wixii talyaani garanay kulli dadkii waaweynaa age-ka qayb xitaa dadka kulaala jiray wax ka daawanaysa la soo ababraya kuwaate waa caana geel intaasan kaga gudbinaa jeego hay maxaan dhahaa aniga huma anigu waxa tahay walaalkii waa tahay ina adiga ku dharbaaxay ina xaydar dharbaaxay ina cadaan dharbaaxo midna igama suurtooda waliba laakiin waxa iga suurtooban ku sheegay dhageysatay in haraati idin dhaco dharbaax ma intaas nooga eegay challenge halka naga socdaan waa Saami Tube oo idin leh Saami Team Tube challenge caawintaas nooga eeka